السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دواني سلام دمان مضيدة وسلامتين. هاتنا ومحمد صومالي اسكسولا شوان أكسن. أصحابتي دا هداد هلمامتي مثلا محالي رادا آدن وركهين سبسكرايبنا إيسارتو هلمامنا أصحابتا لايك سيدو كالي يشير كنا سو دوادا هاتن iyo reaction keyga caawa habeen walba qamiis waxaan ogala barteenaa reaction soo jeediyo caawa reaction keyga wala qosla asxaabta caawa qosol waxaa hubaal aan maxaa la yiraahdaa aan anigaba igu dhacday oo aan ogahay qiso inay jirto qofka markuu ka soo tago magaaladiisa uu magaalo kale yimaado laazim wax baa ku dhaca haday noqoto luqad ha noqoto haday noqoto dhacdo la yaab la noqoto wixii noqoto haddana iska fahansantaa oo maleeyo waxaan soo wado marka videogan maanta soo wado waxaa waaye maamo Soomaali ah oo dalka Mareykanka maxaa la yiraahdaa gaari soo gadatay askari cadaan istaajiye iyada iyo askariga waxa kala qabsaday bal aan isla aragno ku soo dhawaada xaasmeeyay orba sameeyay kuwadiye gaari baan gatay waa barmad baan soo qaatay gaari baan gatay. Immediately I worked hard, I got a permit and I actually bought it. inta kale kana noqday meesha dad cadaan ay joogo maamada iyo Soomaaliya isku jira marka waxaa jiro gabar ma sha Allah sanka ka hadlayso oo dadku u turjumayso ku soo dhawaada bal hadda Ingiriiska taqaano daaf Soomaaliga taqaano أنا أقول وتوم يلا مرة يو الشغل وضك إلى الحكومة يا واحد وشيت البوليس. And then suddenly I am thinking like I am the leader and the head of this country. والله وحاس قولي صوتها كده Wonderful. And then I got a vehicle and suddenly I was driving the vehicle and I got pulled over and I see the lights of the police behind me. بوليس كمركب استاجية أو صوتك أصلاً ولي أنا قوي حويدين بوحة كسر دعي كل كله أو نبضنا أو إمرجنسي أو والمرة صار عايم. So when the police officer pulled me over, as he was approaching to me, he got another urgent call, like something that was very, very urgent. And before he said anything to me, he went back to his vehicle and started driving, and he got started driving to Goga. way u dhactay maamada askariga markuu halkan u soo gaaray u soo dhawaaday waa emergency kala laga soo wacay isla markaa waa cararay marka tan ayaa laga yaabay inuu su'aal u weydiiyo lesson iyo waxa inuu wadato marka maxaa la yiraahdaa anina nasiib oo laalahay haduu traffic saasi istaajimis askari isla markii iga tagay waa kasi carar lahay marka maamadan aan aragno waxa sameysay He started running, got in his car and just took off running. أنا بقدم على إن كريم. And I thought that is what والله علي الله كده عرف for me to follow him. And I followed him. maamada waxay oonaysaa askariga inuu dhahay gaarigaygan galaa waa baxa ee soo dabaraac dabaraac askarigi marmarkuu joogo intaasoo nal gooye nalalka asaga waa gooyaa ma istaago nalkoo geli wuxuu gooyaa maxamudaa guduudan anna waa daba ordahaya. So this whole time wallahi yahay moogta emergency-ga iyo maxaa la yiraahdaa siiba ambulance-ga iyo askariga nalka yani kuma istaagi karaan hadii wax emergency ay jiraan yani qofka askariga oo kale meel uu ka daha nalka waxba lama ahan uu mara asaga emergency-ga sidoo kale way maraysaa marka maamadan ninkii askariga meel uu carraa way ka daba carartaa wuu gooyaa way ka daba gooysaa nalkii he's urgent, he runs a red light, he passes the bus stops everything, and I'm doing exactly the same thing. I just followed him all the way. And then he got to his place where he was going to where the urgent was, and I pulled right next to him. يعني askariga meesha markuu tagay hadda meeshaas oo kale laga yaabaa inay dhowr kilomitir tahay marka ninkii meesha uu tagay askariga oo meesha shilkii wixii ka dhacay u istaagay maamadu daba istaagtay ninkaani ka harweysan tahay I pulled next to him and he said, "What do you need?" I told him, "You pulled me over and I'm wondering, what do you need?" And then he said, "I went all the rest."
askariga waxay weydiinaysaa adiga macadanaysa Lights, and you've been following this whole time? I said, yes. بوليس في عبد وها يمكن meel buu ii leexiyey hadda kadib buu yidhi haddii boolis ku istaajiyo oo isagii wax ku weydiin kaa cararo halaacin buu igu yidhi. He was a nice police officer. He did a cultural class for me then. Took me over to the side and said, listen, if you ever get pulled over in the future and the officer doesn't say anything to you, that does not mean you follow him. marka waxaan ku yidhi intaasoo wadan baad ka soo tagteen waxbana ma garanaya awal adiga GPS yahayo kuga ordahay. And then he let me go, but then I told him, I just followed you. I'm not a GPS. How am I supposed to get يعني maamada meel ma taqaano ninkii ordaya way ka daba ordaysay marka haddana waxay rabtaa qof meesha ka imaatay u celiyo wallahi I told him, I didn't want to take me home. How am I going to get home? boolis kalaa laygu daray waxaa adreeska sheeg baan igu waafiicnaa adreeskaygi baan sheegay. So I gave them my address, and then another police officer escorted me home. haddana boolis kale lagu daray xaafadda soo celiyo boolis raacday boolis soo celiyo For 2 hours, I was driving, running after an officer, and then coming back, I was also being escorted and following another officer. ninkii markaan imid hameenkii wax ma cunin waxaan idhi intaasoo dada markaad ixtibaaxaysay haddaad maanta dad dili lahayd. waxaa la yaab leh maamada ninkii askariga hore waxay daba ordaysaa 2 saacadood meeshaasay u dheertahay bal ka waran 2 saacadood meelay daba ordaysay oo wax faa'iidiyo wax danaan ka jirin yacni faham la-aan wallahi dhibtu intaan kama badnaateen subaxdii gaarigii for sale baan ku qoray waana dhaartay gaari dambe inaana gadan. And then after I went home, I started really analyzing what just happened. And I realized I could have ran someone over, I could have done a lot more damage. The following morning, I put a for sale sign on that vehicle, and I never drove back. maamada subax markii la gaaray gaariga waa iska gatay wallahi maamadan ku dayshay leedahay waa يعني قف بنادم ما وقتها تدوى عجرة هذا لقي أبا إن يجران دب قبصدي مركي قربها هذين مثل مركي مقالة كتجين بس حشونا إن يلو ذاكان أنا جا ويشرتا إن شاء الله وأنا لو ذاك دونا هدو فيديو كان حلو بقول لايك إن شاء الله وأنا لو ذاك دونا قصة أنا يقول عادي نت قصة البدن معاه بقى قصص تتكلم إن رياكشن كصار بحين دونا أصحابته هذا النوحين اللي هي إن تذكر الأصحاب تدرى النقطة محل هذا فيديو كان لقيه إنه صوته inkastoo aan jeclahay qamiis inaan ku adkeeyo horaa waxaa loo dhahay ninka jimca waa la raba qamiis waxay xitaa marka ani laga yaaba jimcana waa la rabee asxaabta raali laga noqdo insha Allah asxaabteeda mac salaamu youtube keena kalena halkaan idin soo saari doona arki doontiin subscribe ala saar Somali Squad Page marka haatan waxaan ku deenayaa jimca wanaagsan yaali ilmaamin jimca mubaarak wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh